بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى waxaan maanta bilaabanaynaa kitaabu الصلاة waxaa hore noogu soo dhammaaday kitaabu اlcilm iyo kitaabu الtowxiid iyo kitaabu الطahaara casharadani aan qaadanayno oo tasalsulka ah ma aha casharo oo kitaab ay ku qoran yihiin oo aan aqrinayno inamaa waa casharo aan soo diyaariyey oo aan soo koobay oo qofka intuu uga baahan yahay oo muhiimka ah aan casharadan kusoo diyaariyey si markaasi qofka si fudud inuu ku fahmo diintiisa. marka towxiidkana waan soo qaadanay, sidoo kale tahaaradana waan soo qaadanay. insha allahu tacaala waxaan maanta bilaabanaynaa salaada. casharadani marka waa muhiim. waxaan kusoo koobaa qofka waxyaabaha muhiimka uu aadka u baahan yahay oo cibaadadiisa ku tacalluqda. salaada oo kale waxaa ku sugan macnaha salaada, waxa la yiraahdo xukunka salaada, mansilada iyo fadliga ku sugan, shuruudda salaada, arkaanta salaada, waajibaadka salaada, sida salaada loo dukanayo. waa arrimaha ugu muhiimsan ee qofka muslimka u baahan yahay. lidaalika casharadan waxaa la rabaa qofka inuu dhageysto, uu qorto, uu barto, kadibna walaalihiisa dadka uu yaqaano, qaraabadiisi inuu sii baro. kitaabu salaa, kitaabkani oo aan maanta bilaabanayno, casharada noo soo socda waxay ka hadli doonaan salaada. asalaatu luqatan, salaad luqad ahaan maxaa la yiraahdaa? salaa marka la yiraahdo luqad carabiga maxaa loo yaqaanaa? waa duco iyo raxmad ayaa loo yaqaanaa. imaamu nawowi raximahullah kitaabkiisa majmuuca wuxuu yiri asalaatu fi lugati, salaada luqad ahaan waxaa la yiraahdaa adducaa, ducadaa la yiraahdaa. maxaa daliil u ah? yaquulu allahu tabaaraka wa tacaala, rabbi wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, wasalli calayhim ina salaataka sakanun lahum wallahu samiicun caliim. wuxuu rabbi la hadlaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam. waxaa lagu yihi wasalli calayhim, ku salli, u duceey. ina salaataka, ducada aada u duceynaysid, sakanun lahum, xasilooni ayay iyaga u tahay. wallaahu alla samiicun, waa allihii maqla, caliimun, haddana cilmi u leh wax walba. aayaddu way dheereed. rabbi subxaanahu watacaala wuxuu yihi khud min amwaalihim sadaqatan tutahiruhum watuzakiihim biha wasalli calayhim ina salaataka sakanun lahum wallaahu samiicun caliim. waxaa la yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam, khud min amwaalihim sadaqatan, maalkooda ka qaad, sadaqo ka qaad, waa zakada. tutahiruhum watuzakiihim biha, way tahiraysaa, macnaha xumaanta iyo ayay ka tahiraysaa sadaqada ay baxsanayaan zakada. wasalli calayhim, waxaa la yihi kadibna ku salli, micnaha u duceey. ina salaataka sakanun lahum, ducadaada waxay u tahay xasilooni. macnaha ducada aada u duceynaysid ee istikfaarka, dembi dhaafka aada rabbi u weydiinaysid, tuma'niinay u tahay, way ku xasilayaan. cabdullaahi ibnu cabaas waxaa laga wariyey wuxuu yihi sakanun lahum ay raxmatun lahum, raxmad ayay u tahay. qataadana wuxuu yihi sakanun lahum ay waqaarun lahum, xasilooni ayay u tahay.
micnaha markay sadaqada bixiyaan u ducee, ducadaada waxay ka qaadayaan xasilooni iyo deganaan iyo raxmad. ibnu kathiir raximahullah wuxuu yihi wasalli calayhim ay udcu lahum, u ducey. idan meeshaasi waxaa ku sugan salaada waxaa la yihahdaa duco, ila nabigaa la yihi calayhi salaatu wasalaam wasalli calayhim, ku salli ay u ducey. lidalika cabdullaahi bni abi awfa wuxuu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii ay qoom sadaqo u keenaan kaana yusalli calayhim, wuu ku salinayay, micnaha wuu u duceynayay. markaasaa aabahay wuxuu u keenay buu yihi sadaqo, markaasuu rasuulka yihi calayhi salaatu wasalaam allaahuma salli calaa aali abi awfa, abu awfa ahelkiisa ilaahay ku salli, macnaha u naxariiso. waa duco rasuulku u duceynayay. waa xadiid saxiixa imaam muslim u soo saaray. idan asalaa luqad ahaan waxaa la yihahdaa adducaa, waa ducada. aayad kale rabbi wuxuu yihi subxaanahu watacaala ina allaha wamalaa'ikatahu yusaluuna cala annabiy yaa ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasalimuu tasliima. allah subxaanahu watacaala wuxuu yihi fi suurati alaxzaab ina allaha wamalaa'ikatahu, allah subxaanahu watacaala iyo malaa'igtiisii yusaluuna cala annabiy, waxay ku salinayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam. ee yaa ayuha aladiina aamanuu, kuwa alla rumeeyow, saluu calayhi, ku saliya nebiga, wasalimuu tasliima, salaama, salaamid salaama. aayadan wuxuu rabbi noogu cadeeyey subxaanahu watacaala inuu allah subxaanahu caza wajal iyo malaa'igtiisa ay rasuulku ku salinayaan. imaamu lbukhaari wuxuu yihi sida ibnu kathiir uu soo gooriyey, abulcaaliya ayaa wuxuu yihi salaatu llaahi, salliga ilaahay uu ku salinayo rasuulkiisii, waa hanaa'uhu calayh, waa amaanida uu amaanayo. wuxuu ku amaanayaa cinda almalaa'ika, malaa'igta agtooda ku amaanayaa. micnaha rabbi subxaanahu watacaala rasuulkiisa muxamed calayhi salaatu wasalaam ayuu malaa'igta iyo fi lmala'i alaclaa ayuu ku amaanaa. taas marka waa salliga ilaahay uu ku salinayo rasuulkiisa muxamed sala allahu calayh wasalam. amaa salliga malaa'igta ay ku salinayaan wuxuu yihi wa salaatu lmalaa'ika, malaa'igta salaadoodana adducaa, waa ducada. micnaha way u duceynayaan malaa'igta. markaasuu ilaahay amray mu'miniinta iyagana inay rasuulka ku saliyaan. sidee rasuulka lagu salinayaa? xadiid saxiixa, saxaabadu waxay weydiiyeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam, waxay yihahdeen salaanta waa fahanay, kayfa nusalli calayka, sideen kugu salinaa? markaasuu yihi quuluu waxaad tidhaahdaan allahuma salli calaa muxamedin wacalaa aali muxamedin kamaa sallayta calaa ibraahiima wacalaa aali ibraahim inaka xamiidu majiid. allahuma baarik calaa muxamedin wacalaa aali muxamedin kamaa baarakta calaa ibraahiima wacalaa aali ibraahim inaka xamiidu majiid. sidaasaa rasuulka loogu salinayaa calayhi salaatu wasalaam. khaas ahaan qofka markii uu salaada dukanayo, tashahudka ataxyaatada ugu dambeyso markii uu fadhiyo, sidaasaa laga rabaa inuu rasuulka ugu saliyo calayhi salaatu wasalaam. way noo imaan doontaa. idan aayadana waxaa ku sugan asalaa macno ahaan raxmadna waa la yihaahdaa, iyo duco iyo amaanitaan. lianna markii ilaahay subxaanahu watacaala uu ku salinayo, micnaha wuu amaanayaa. amaa markii malaa'igta iyo wixii ka haray dhammaan ay qofka ku salinayaan, way u duceynayaan. idan asalaa luqad ahaan waxaa la yihahdaa ducadaa la yihahdaa. aayadahaasaana daliil u ah.
ama axaadiidta rasuulka laga wariyey calayhi salaatu wasalaam waxaa daliil u ah xadiid saxiix ah imaam muslim uu soo saaray oo laga warinayo abu hureyra radia allahu canhu qaala wuxuu yihi abu hureyra qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam idaa duciya axadukum axadkiina haddii loo yeero oo cunto loogu yeero falyujib ha ajiibo walaalkiisii meeshii loogu yeeray ha tago cuntadii loogu yeerayna ha ajiibo ha cuno fain kaana saa'iman haddii uu yahay qof sooman falyusalli ha u duceeyo wain kaana muftiran haddii uu afuran yahayna falyatcam cuntadaasi ha cuno xadiidku waa xadiid saxiixa akhrajahu muslim imaam muslim ayaa xadiidka soo saaray idan xadiidkan waxaa ku sugan awalan dadka muslimiinta xuquuqda ay isku leeyihiin waxaa ka mid ah haddii qof walaalka muslim ah uu kuu yeero ama ha kugu yeero waliimo macnaha cursi uu qabo ama xaflad uu qabo waliimo uu sameeyo ha kugu yeero ama ha kugu yeero inaad cunto la cuntid haddii walaalka muslim uu kuu yeero xaqa uu kugu leeyahay waxaa weye inaa ajiibtid nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi idaa duciya axadukum falyujib axadkiina haddii loo yeero ha ajiibo markaa wuxuu yihi fain kaana saa'iman haddii uu sooman yahay falyusalli ha ku saliyo macnaha ha u duceeyo soonkaasi uu sooman yahay maxaa weye marka waxay noqon kartaa soon sunno ah waxay noqon kartaa soon qadaa lagu lahaa uu gudaayo waxay noqon kartaa soon nadar uu galay intaba ay soom uu sooman yahay haddii ay kusoo beeganto loo yeero qofkaasi inuu walaalkiisa u yeero uu u gooyo oo meeshii uusan tegin saxiix ma aha ha ajiibo ha tago haddii uu sooman yahay ha u duceeyo riwaayo kale imaam muslim uu soo saaray wuxuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam falyaqul inii saa'im ha yiraahdo waan soomanahay waa ictidaar uu siinayo qofkaasi u yeeray iyo isagoo u muujinayo xaaladiisii inuu sooman yahay laakiin waa inuu xafladaasi tago oo walaalkiisa ugu yeeray haddii uusan marka hore ka cudur daaran laakiin xaqa lagu leeyahy waa inuu ajiibo sidoo kale xadiidka waxaa ku sugan qofka dadka quudinaya waxay doonaan ha noqdaa cuntada dadka siinaya in loo duceeyo falyusalli buu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam haddii uu sooman yahay ha u duceeyo waana maxalu shaahidka xadiidka aan kusoo qaadanay salaada macnaheeda waxaa la yihahdaa ducada halkaasaa daliil u ah fain kaana saa'iman falyusalli haddii uu sooman yahay ha u duceeyo wain kaana muftiran falyatcam haddii uu afuran yahayna ha cuno lianna carabta hore ayaa waxay dhaqan u lahaayeen qofka haddii uu cunto kugu yeero cuntadiisa inaad cuntid haddii aada diidid macnaha waxaa weye qofkaasi shar iyo xumaan ayaad u socotaa inaad gaarsiisid leanna waxay dhaqan u lahaayeen qof aada cuntadiisa cuntay inaad hadhow dhibaato aada gaarsiisid agtooda waxay ka ahayd arrin aada u falxun falidaalika qofka haddii uu qofka maagan yahay inuu dhibaato gaarsiiyo ama uu shar uu la maagan yahay cuntadiisa ma cuni jirin way ka istaagi jireen waa ka nebi ibraahim calayhi salaam ilaahay qur-aankiisu noogu sheegay markay malaa'igtu u yimaadeen rabbi wuxuu yihi faraaqa ilaa ahlihi fajaaa bicijlin samiin dibi ayuu u keenay oo la saloolay markaasuu faqarabahu ilayhim wuu usoo dhaweeyey markaasuu arkay inayna cunaynin ilaa malaa'igtu wax ma cunaan qaala wuxuu yihi alaa ta'kuluun miyaadan cunaynin rabbi wuxuu yihi fa awjasa minhum khiifatan cabsiyuu ka qaaday marka nebi ibraahim calayhi salaam
maadaama cuntadiisa ayna cunaynin dadkan maxay maagan yihiin buu is yiri. markaasay qaaluu waxay yidhaahdeen laa takhaf ha baqin wabasharuuhu bigulaamin caliim. markaasay u bishaareeyeen. idan waa dhaqan ay hore u lahayeen carabta. qofka haddii uu qofkan shar la maagan yahay cuntadiisa ma cuni jirin. haddii marka qofka uu cuntadiisa cunana dhibaata ma gaarsiin jirin. laakiin hadda zamanka wuu isbedelay. dadka qaar ayaa waxay ku maleegaan qofkan si ay dhib u gaarsiiyaan ayay waliimo iyo xaflad ugu yeeraan si qofkii ay fursad ugu helaan. taasna waa qadar iyo khiyaano. marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri fain kaana saa'iman falyusalli, haddii uu sooman yahayna ha u duceeyo, wain kaana muftiran falyatcam, haddii uu afran yahayna cuntada ha cuno. akhrajahu muslim. xadiidkaasi imaam muslim ayaa soo saaray. waa xadiid saxiixa. idan halkaas waxaan ku fahanay salaada luqad ahaan waxaa la yidhaahdaa ducada. salli calaa fulaan haddii lagu yidhaahdo micnaha u duceey waay. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yihi wasalli calayhim, nabigaa la yiri ku salli, micnaha u duceey. sidoo kale xadiidka nabigu wuxuu yihi fain kaana saa'iman falyusalli, ha ku saliyo, micnaha ha u duceeyo. luqad ahaan marka waxaa la yihahdaa ducada. haddii ilaahay xaggiisii subxaanahu watacaala ay salligu ka imaanayo, macnaha sida aayadda ilaah yiri oo kale in allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna, ilaahay wuu ku salinayaa. salligaasi marka ilaahay xaggiisa ka imaanaya waa raxmad. ilaahay wuu u naxariisanaya qofkaasi. amaa istilaax ahaan maxaa la yidhaahdaa, macnaha sharci ahaan maxaa loo yaqaanaa salaada. salaad marka la yidhaahdo sharciga maxaa loo yaqaanaa. culimadu waxay yidhaahdeen waa cibaadatun tatadamanu aqwaala wa afcaala makhsuusatan. waa cibaado ka kooban dhawaaq iyo ficil la sameynayo oo gaar ah. cibaadadaasi ama afcaashaasi la sameynayo muftataxatun bitakbiiri, waxaa lagu furanayaa takbiirta allahu akbar. mukhtatamatun bitasliimi, waxaana loogu dambeysiinayaa salaam noqsasho. cibaadadaasi ayaa la yihahdaa salaad. waa salaada la dukado. idan salaada waxaa loo yaqaanaa sharci ahaan cibaado oo la sameeyo oo ka kooban tasbiix iyo taxmiid iyo afcaal la sameynayo, rukuuc iyo sujuud iyo ictidaal. cibaadooyinkaasi la sameynayo oo kooban oo la khasisay oo lagu furanayo takbiir allahu akbar, loogu dambeysiinayo tasliim assalaamu calaykum waraxmat ullah. taasaa waxaa la yihahdaa salaad sharci ahaan. marka haddii qof uu yiraahdo qofkan salaad ma dukan, micnaha cibaadadaasi oo salaada lama imaanin. qofkan salaad lama imaanin macnaheeda ma aha qofkan ma duceysan, ma aha. waxay noqonaysaa marka salaada cibaadada oo khaaskaas ah ayaa loo yaqaanaa sharci ahaan. maxaa daliil u ah? in sha allahu tacaala casharka soo socdaan qaadan doonaa. hada wallahu aclam, wsala allahu calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin.